ruux aqoontiisa baro lagama maarmin ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومر صدحات iyo cashiradeenii taxanaha ee aynu ku wadnay habka muuqaalka waxaynu soo dhiganay laba cashar oo ahaa factorization cashirkeenii koobaad waxaynu soo dhiganay symbol factorization cashirkeenii labaadna waxaynu soo dhiganay factorization by grouping maanta waxaynu qaadanaynaa cashirkeenii saddexaad ee factorizationka kaas oo ah factorization by difference of two square isreynta laba tibxood oo isku weergaraysan oo minus u dhaxaysa weeyaan way cashirkan la yiraahdo difference of two square waxaynu ku soo dhiganay markaynu marinay multiplication of expressionska ayaynu ku soo dhiganay wax la yiraahdo special multiplication special product oo ahayd habka gaarka ah ee looga shaqeeyo isku dhufashada qaar kamid ah intaynaan gelin haddaba factorization by difference of two square waxaynu xasuusin doonaa difference of two square kani sidoo ahaa iyo wuxuu ahaa way marka ila eega haddaba waxaan doonaynaa horta inaynu isla fahanno difference of two square way marka waa remember waxaynu xasuusnaanaynaa cashirkeenii hore way qof walba aad ugu fiirso difference of two square waxa weeyaan waa isku dhafasho gaar ah oo tibxaha gaar looga shaqeynayo way haddaba waa tibxaha sida gaarka isku dhafashada looga shaqeynayo waxa weeyaan difference of two square waxa keenaya in general si guud ahaan baynu eegnaa marka in general si guud ahaan baynu eegnaa way difference of two square waxa keenaya waa laba tibxood oo isku mid ah oo laakiin calaamadaha ku kala duwan oo la isku dhuftay laba tibxood oo isku mid ah laakiin calaamadaha ku kala duwan oo la isku dhuftay isku dhufashadii aynu naqaanay si ka kooban baynu uga shaqeyn karaynaa way baleega haddaba isku dhufashadii aynu naqaanay waxay ahayd laba hab baynu ku shaqeyn jirnay hab la yiraahdo distributive method iyo hab la yiraahdo Fourier method way distributive method wuxuu ahaa inaynu qaybtan koobaad expression kan koobaad intaynu soo qaadano inaynu ku dhufano inta dambe haddana tan labaad soo qaadano aynu ku dhufno taadna sina booha dan soo qaado minus b da dambe ku dhuf tan iyo calaamadooda iswata soo qaado dabeetana haddana inta dambe ku dhuf way baynu ku dhufanay waa a square baynu ku dhufanay minus b waa minus ab plus b baynu ku dhufanay waa plus ab plus b baynu ku dhufanay minus b waa minus b square way sidaynu arkayna labada tibxood waa like terms midna minus b wata midna plus wata dibna labadooda isla baxayaan meesha waxay nagu soo hadhay a square minus b square bay nagu soo hadhay way a square minus b square waa isku dhufashadii hore ay naqaanay laakiin waxaynu ku soo dhigaynaa cashirkeena aynu xasuusinayno in si ka kooban sida looga shaqeyn karayo oo sidee ah waxa weeyaan labadii tibxood ee difference of two square ka keenaya waa labadan
a plus b iyo a minus b waa si general aynu sheegnay waa laba tibxood oo isku mid ah laakiin calaamadaha kala duwan weeyaan way waxaynu oran karaynaa hadaba difference of two square waxaynu oran karaynaa habkan dheer mari mayno saynu maalintii hore soo dhiganay waxaa la oranayaa tibixda koobaad isku weergaree haddaynu isku weergarayno waa a square hadeega tibixda koobaad isku weergaree second step tibixda labaad ee b-da iyadana isku weergaree waa b square a square iyo b square labadii tibxood aynu soo isku weergaraynay mayna isu dhaxaysi intaa ama formka ayaa la yiraahdaa difference of two square qofka waxa looga shaqeynayaa qofka waxa laga doonayaa in hadduu arko sidaas oo kale oo sidaa uga shaqeeyo laba tibxood oo isku mid ah laakiin calaamadaha kala duwan waxaynu samaynaynaa tibixda koobaad baynu isku weergaraynaynaa talabaadna waynu isku weergaraynaynaa labadoodana minus baynu dhaxaysiinaynaa cashirka imkaan ka sheekeeyay waa keenii hore oo aynu isxasuusinay cashirkeena maanta waxa weeyaan haddaba difference of two square kan sidee baa loo isiraynayaa weeyaan difference of two square ka sidee baa loo isiraynayaa isiraynta waxaynu ku soo sheegnay maalintii hore inay tahay inaynu multiplicationkii ama expansionkii aynu dib ugu celino wixii aynu ku samaynay marka hore expansionka waayo haddaba tusaalaheena eega example waxaa laynagu yidhi baleega example waayo waxaa laynagu yidhi factorize waxaa laynagu yidhi isireeya haddaba factorize isireeya waayo tusaalaheena koobaad waxa weeyaan waxaa laynagu yidhi egas oo laysku weergareeyey minus 4 factorize gareey way tusaalaheena labaadna waxaa laynagu yidhi 25 y square minus 9 labada factorize gareeya way haddaba labadaa markaynu factorize garaynayno waxaynu ka eegaynaa inay leeyihiin sifooyinkii difference of two square way eega waxaan leenahay tibixdan koobaad horta ma isku weergaraysan tahay haa wuu muuqdaaba xarafka isaga waa la muujinaya 4 wuxuu ka mid yahay square numberska isaguna labadii shardi way buuxisay haddana waxaynu ka eegaynaa calaamaddu ma tahay minus haa way tahay marka waxaa la odhanayaa expressionkani waa difference of two square baa la odhanayaa way tan labaadna 25 waa nambarada isku weergaraysan buu ka mid yahay wayna way isku weergaraysantaho way muuqataa 9na waa nambarka wuxuu ka mid yahay numberska isku weergaraysan way haddaba sidee baa loo factorize garaynayaa kuwa noocaas way u fiirsada su-aasheena koowaad waa x square minus 4 x square minus 4 waa yahay eega marka la factorize garaynayo way x square waxa weeyaan waa x square-keedii way kow taas wata way 4na haddaynu u qorno as a power haddaynu jibaar ahaan u qorno isaguna wuxuu la mid yahay 2 power 2 baa loo qori karayaa isagana 2 power 2 baa loo qori karayaa way haddaba isku weerka waxaynu naqaanaa inuu yahay tiradan isku weergaraysan laba jeer baa la isku dhufto waa laba 2gana laba jeer baa la isku dhufto weeyaan haddaba marka la factorize garaynayo waxaa la samaynayaa x square macnaheedu waa laba x labadii x baynu halkaa dhiganaynaa 2 power 2na labadii 2 baynu halkaa dhiganaynaa wataayadeeg wayn kala qaadnay
x square waa labadan x 2 power 2 oo aynu ka keenay 4 na waxa weeyaan waa 2 iyo 2 waxaynu samaynaynaa marna plus baynu raacinaynaa marna minus baynu raacinaynaa factorization keedu waa sida kow ardaygu sidaa uga shaqayn karaya si kale ka fudud baa jirta waynu samayn karaynaa baleega waa si kale aynu uga shaqayn karayno u eega x oo la isku weergareeyay waa square number square root ka baynu ka saarinaa xididkaynu ka saarinaa way x square tirada xarafka laba jeer marka la isku dhufto x square ina siiya waa x kaliya way naqaanaa kow way 4 na tirada markaynu laba jeer 4 marka la isku dhufto ina siisaana iyaduna waa 2 soo labada ma midna waa x marka la square root ka laga saaro midna waa 2 marna plus baynu raacinaynaa marna minus baynu raacinaynaa waa sidii hore oo marka aan ku celiyo x square minus 4 labadii waxaynu ka eegaynaa sifo way isku weergaraysan yihiin minusna way u dhaxaysaa markaynu isreynayno markaynu factorize garaynayno square root ka baynu ka saaraynaa tibixda koobaad waa x way 4 oo tibixda labaad ayaan ka saaraynaa square root ka waa 2 marna plus baynu raacinaynaa marna minus baynu raacinaynaa this is factorization waa factorization haddaynu labadan isku dhufano checkinkeedu kan bayna siinaya way tusaalaheena labaad waa 25 y square minus 9 25 y square minus 9 way sideenii imakaynu kaga shaqaynaa qaybtii ahayd inaynu laba u kala qaadnay ee ahayd laba jeer oo la isku dhuftay ka timid waynu ka deeninaa waxa ka fudud maadaameynu naqaano sida xididka looga saaro tirooyinka waxaynu samaynaynaa 25 xididkaynu ka saaraynaa y square xididkaynu ka saaraynaa 9 xididkaynu ka saarno markaynu sidaa samayno labada tibxood ee ay noo soo baxa markaynu xididka ka saarno marna plus baynu raacinaynaa marna minus baynu raacinaynaa way 25 xididka haddaynu ka saarno waa 5 25 xididka haddaynu ka saarno waa 5 way y square haddaynu ka saarno xididkana isaguna waa y hadda u fiirsada 25 y square 25 kana gooni baa xididka looga saaraya waa number y-da oo numberana y-da oo xarafana iyadana gooni baa looga saaraya waa 5y sagaaliyadana xididka laga saaraya waa 3 labadaa tibxood bay noo soo baxay 5y iyo 3 labadii tibxood baynu laba jeer ka kala dhigaynaa marna plus baynu raacinaynaa marna minus waa la soo kala horreysiin karaa minus iyo pluska wax dhibaataa kuma jirto waaba intaaba arday waxa weeyaan inaynu xididka ka saarno ka koobaad ka labaadna ka saarno kadibna marna aynu plus raacino marna aynu minus raacino way bal tusaale saddexaad baynu ku daraynaa way waxa layna siiyey 4m square minus 16 horta markaynu wax factorize garaynayno difference of 2 square oo ah laba tibxood oo isku weergaraysan oo minus u dhaxayso labadii safa maleeyin baynu keegina 4 wuxuu ka mid yahay square numberska tirooyinka laba jibaar m9 ay isku weergaraysan tahay way noo muuqataa oo laba dusha ka saaran way 16 isaguna waxa weeyaan waa square numberska
calaamadda u dhaxaysa waa minus calaamadda u dhaxaysa waa minus waa difference of two square sidee baa loo factorize gareynaa 4 saynu hore u soo sheegnay xididkaynu ka saaraynaa waa 2 m square oo ah dee m oo laba jeer la isku dhuftay haddaynu xididka ka saarno waa m de m bayna siinaysaa inaynu markaynu isku dhufano laba jeer m square way 16 ka saara xididka waa 4 marna plus baynu raacinaynaa marna maxaynu raacinaynaa marna minus baynu raacinaynaa ardaydu saanu fahmin plus kuna mar walba horeynayso iminka bal minus kayna horeysiinayna tan plus kale ardaygu sidoo doono ayuu oranaya way hadaba khulaasada casharkeenu maanta waxa weeyaan waa factorizationka ama waa isreynta la isreynayo laba tibxood oo labaduba ay isku weergareysay yihiin oo minus u dhaxayso sida loo factorize gareynaya waxa weeyaan tibixda koobaad square root-ka ama af Soomaaliga xididka ayaynu ka saarnaa tibixda labaadna xididkaynu ka saarnaa marna plus baynu raacin doonaa marna minus baynu raacin doonaa factorization keedu iyada waa intaas oo kaliya laakiin ardayda mid baan xusuusinaya haddii halkani tahay plus imika 25 y square minus 9 soma hadday tahay 25 y square plus 9 ma factorize garoobisade waa difference of two square ma qaabkan waxa lagaga shaqeyn karayaa kaliya difference of two square aad baad u mahadsantiin laba xabo oo aad guriga kaga soo shaqeysaan ama xabad baynu direynaa way isku soo day ardayo isku soo day casharkana ku celcesho si aad wax badan u fahanto way su'aasheena koobaad waxa weeyaan waa y square minus 36 eega labadii sifa kaaga y-du waa square gareysantay 36 kuna waa square numbers sidii aynu uga soo shaqeynay tusaalayaasha marka daawataan fahantaan ku ceshataan marka shaqo way su'aasheena labaad iyaduna waxa weeyaan su'aasheena labaad iyaduna waxa weeyaan waa 9x square 9x square minus bayna waxa weeyaan waa xabada labaad ee ka soo shaqeyn 9x square minus baynu leenahay 4 way labada xabo isku soo daya casharka soo fahma ka soo shaqeeya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh murtiga dhuux aqoontiisa baro lagama maarmin ha mogaanin taariikhda